أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا مولانا محمد على آله وصحبه وأسلم تسليما كثيرا. وأما بعد waxaynu maanta halkan aan u soo qabsaday shirkeenna jaraa'idii horta dhammaan waan salaamayaa asxaabta facebooka aanu saaxiibka ka nahay dhammaantiin waan idin salaamayaa meelaad joogtaanba adduunyada. maanta waxaynu ka hadlaynaa waxa inagu maqaalo ah ama aynu ognahay in laga wado Somaliland ama Hargeysaba in laga ansixiyo bangiyo ah kuwa ribada bixiya. ribada ma isu sheegayna macnaheedu waxa uu yahay. ribadu waa interest kor weeyaan, lacagta la yidhaahdo dheef kor waxa weeyaan waa lacag oo si غير العادي ah kugu kordhisa weeyaan. lacagtaasi waxa weeyaan waa lacag aanad adigu awooddeeda lahayn ee awooddeeda uu leeyahay baad wax ka amhanaysaa. haddaba anigoon ahayn nin caalima oo diinta islaamka caalimku ama sheekha, waxaynu ognahay laakiin inay ribadu tahay qofka ribo qaata iyo ka bixiyaaba inay yihiin. bale waxaaba lagu sheegay buu diintu ku sheegtay inuu yahay qof hooyadii wuxuu doontay. horta nin hooyadii wuxuu doontay. waxaa kaloo diintu ku sheegtay nin ilaahay dagaal u caddaystay oo inta qori akaya soo qaatay ilaahay dhufaysu galay oo isagii ilaahay ay dagaal dhex mareen. diintu intaasi wax ka weyni ma jiraan. waa meelaha diintu ugu adkaatay ayay ka mid tahay wax ifka lagu sameeyey ribadu. markaa waxaanu kala talinaynaa dadka kuwa halkaa jooga wax ansixiya inay heshiiskaa laalaan. waa haddaanay sidoodii khamri ku weysaysanaynin oonay wax walba iska ansixinaynin, waxaanu kula talinaynaa inay diidaan bangiyada ribada ah oo si kale loo baac mushtaray oo loo kala ceesho, wax loo kala amaahdo oo wax loo kala iibsado si islaamiya. haddaynu tusaale usoo qaadanno waddamada bangiyada ribadu ka jiraan ama dadka ribada qaata, horta tan aanu kaala dhex hadlayno ayaa kow ka ah. dadka qaatayna waxay ku dambeeyaan waruma haysid. nimanka gaalada la yidhaahdo mararka qaarkood damiir waxaana bilaa damiirka ka dhigay oo dadnimadii ka qaaday waa ribada. nin carruurtiisii wuxuu doontay wuxuu doontay faras, wuxuu doontay gabadh intay sawirtay ninkeedii oo carruurtoodii wuxuu doonanaya qodhaaya xaradaayo xuniinta. maxaa ka damiir xun? maxkamadaha sidaa lagu soo taagaa gabadh filim ka qaaday soo sawiraysa ninkii oo carruurtiisii isticmaalaya. dadkaa damiirka hilibka doofaarka khandiirka oo ilaahay isagana uu nacay. waxaanu markaa idiin sheegaynaa oonu idinkala talinaynaa inaad ribada qaadataan, inaad bangiyada ribadaa dalkiina ka ogolaataan. shirkadaha imakaba jira lacag amaahiya dadka oo dahabshiil ka mid yahay, telesom ka mid yahay. shirkadahaasi ribo ku saari maayaan. alaabtaa dooratay bay kuu iibinayaan. halkaasay heshiis kugula gelayaan cad oo la yaqaano oo ay kugu saarayaan wixii ay xuquuq kugu yeesheen. business weeyaan taasi. laakiin ninku yidhi lacagtii sanadkii walba intaasaa kugu kordhaysaa, haddaad bixin weyda intaasaa kugu kordhaysa, haddaad bixin weyda intaasaa kugu kordhaysa, waxa weeyaan macnaheedu waa anigaa kulla weeyaan. waana sida dadkan yurub qalbiga looga dilay, nimanka reer galbeedku ay dadka qalbiga uga dileen, maskaxda uga gumaysteen. hadhow dadku xor ahaan maayo, qofka warwar baa dilayayo walaac. dadka muslimka ee dhulalkan ku qaatayna annaga aragnay, weliba kuwa soomaalidii siday u nool yihiin nolol cidhiidhi ayay ku nool yihiin. kuwa ribada qaatay waxa weeyaan adigoo iska dawarsadaa dhaanta intaad ribo qaadan lahayd
ودورسي كنا ولادا أيا عن تربده إن دجال لقى شوط قرية كيف وديسبنا أنت تصاق هذا تين دي لهي ترى شيء أو قشة أو دي لهي في سكر ردو مركا إلهي في سداسي وحبي اللي يساق كل في سكر دعي نمن كمركا ربده صوم الملوقية أما ربده الدونية إن يدتك كذا دعيان وحويان المادريال هل الديدو هل يسور تاجو بس نسكو سكرو كسعنايا سيسون حريص شعب كسعنايا سيو حس دايمين أبو كسعنايا ما هين الدين تكو كردو طبعا كنا دولار نكت كامات ما هين كوي هذا سنة كيول بس أفرق لو كنا دولار بكو كردية أو أنت عمرك عانيك كويلنا يا ماها إن وحلا سمين كرا dadka yaa waxay samayn karaan oo installment hagbad bay ku bixin karaan si kale Soomaalidu ma caamisha waxa weeyaan matalan hadaad guri leedahay oo doonaysa inaad guri kala dhisato waxaad u geynaysaa dahabshiil garaamyada gurigaaga ama waraaqa gurigaaga waxaad leedahay dahabshiil oo waraaqahayga waa kuwan guriga qaada hadaan hadhow lacagta iska bixin waayo kan kalena haday lacag bixin weydo dahabshiil gurigaagii kale la wareegi minidna waa lagu kala iibsanayaa Hargeysa dhul iyo guriga la leeyahay iyo Burcaba iyo Berberiya Boorame iyo Muqdisho iyo meel kastaba guriyo iyo dhulka Soomaalidu waa qaali dadka dibadaha soo dhasaya waxa weeyaan nin doonaya inuu dadka dhiigooda jaqo oo deyn geliyo dadka oo yeesho maskaxda ka gumaysto oo ribo saaro Ilaahay baa ribada nacdalay nabiga nacdalay diinta nacdashay ribada waxa weeyaan ribadu caruurtiina ayaa beerkooda cunaysaan dhiiga caruurtiina cabaysaan hadhow ninkiya naagta is qabsanayo midkoodba meel ribo ka soo qaadanaya kaararkiina qarxayo kaarar baa la idin sameynaya sida wadamada islaamku ay ku macaamilaan ee ugu wanaagsan xitaa wadamada islaamka rogmaday ee aad arkayso waa kuwii ribada lagu qaatay ee ribada lagu galay waayo ninkan gaalka isaga la rogi maayo waa loo naxariisanayaa ifka waa lagu dharginayaa آخرنا هو هدي لهيد ما يوال سوق يا إسقى لكن أديكو إسلام أو دينتي إسلام كل شيء أو حديثتي إيه النصوصتي إيه القرآن إيه آياته أي هل يهبين الشيخ در إيه الشيخ عثمان إيه الشيخ سيرو إيه رجع وضياشي كو آخريان إيه الشيخ مصطفى وحال الله بشيخ الشيخ يدا الشيخ مصطفى إلى يرى الله كان نقده الشيخ يدا هو النكاسي الشيخ مصطفى إسماعيل مالهم والبا أي دكتور كوا آخرين آيات عد يا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة الله يدين ما أمرين إن إلهي كبقتان وصلاة تكتانيين وحسترتان موين وحكى الله يدين ما أمرين أنا أقول شركة شرائط هالكاكو قبلني وحنو يدين كدقينا إن بنقية الربا كوا تشندقاقا إنا يسحيحان إنت corruption كودي قاتان waayo haddii maanta la yidhaahdo dadka dhulka ku nool baa la iibinayaa saxeexa kuma daahayaan inay saxeexaan damiirkoodu wuu dhintay wuu baktiyey inta kuwa xildhibaanada iyo kuwa guurtida isku sheegaba waa damiir mayda baa ku jira kama daahayaan oo kama habsaamayaan oo kama suulayaan inay yidhaahdaan aynu saxeexno inta yar jeedaa ku ritaan uqsum billaahi inaanay ku daahaynin haddii la yidhaahdo hablaha dalkoo dhan baa la iibinayaa haddii la yidhaahdo macdanta dalkoo dhan baa la iibinayaa haddii la yidhaahdo dhirta dalkoo dhan baa la iibinayaa kuma daahaan dibitaati qura ama embu qura oo gobolkii laga soo doortay wuxuu qabtaa ma jiro mid ka warwaraa ma jiro mid ka hadlaa ma jiro marka laga reebo tiro yar oo raggu lama wada daadifeeyo raggee tiro yar baa ku habsaamaysa ama ka daahaysa inay wax saxeexaan oo corruption gadiidaysa sida odayga garka casaa ee reer Berbera ilaahay cumrigiisa ha raajiye ee maalintii dhawta hadlayay inankii wariyaha su'aal buu weydiiyay wuxuu yiri adiga wali jindagaagay ma leeysiin ka dhiga oo ma lagu yiri wax saxeex lacag ma lagu leeyimid haa buu laakiin ma sheegay buu eeg hadda damiirkiisu siduu u nooliyay uu qariyay cid lacagta ula timid uu sheegi karayay ma ogtahay waxa weeyaan walaalayaal la iskama saxeexa wax binaadam baa mas'uul ka tiin dad baa idin soo doortay dad baa idin sugaya saxeexa badan ka daaya dadka iyo marintana wax walba jiirsiinaysaan arrimaha qaar isku qabsada qaar dib ha loo dhigo qaar hal laalo qaar cod aqlabiyada ku diida
bal ka cun oo ka codee miyaydaan maqal ma carruurtaa ka lidataan hargeysa joogta ka cun oo ka codee ma inta lacagtaba qaadataan lacagtiinaba idi siinayaani dabeed codkana u diidaan oo kaga baxdaan habeenkii marka aragtaan inaan dadka waxaan u danahayn calaa kulli xaal baabul ribaa baynu ku soo noqonaynaa ribadu gurigay madoobaysaa carruurtay madoobaysaa gabadhay madoobaysaa bii'adday madoobaysaa gaalada ayuunbaa ribada iska leh nimankaa ilaahay ka kufriyey baa iska leh ee odayaasha ah ee adduunka aan cidna ku caabudin guudkiisa nimankaasi waxa ay dabadeed iyaga laftoodii dambi baa ka dhintay xaggii dowladnimada iyo statekay ka noolyihin laakiin xaggii familieska ama xaggii hoose kama noola 3 carruura ma korin karaan 2 carruura ma korin karaan waxa weeyaan imanka Denmark oo kale lacag waxa la yidhi xitaa diyaaradaha raacaysaan baa laydin jebinaya carruur dhala lacagta fasaxa laydinka bixinayaa baa la yidhi ee carruur dhala tigidhada waa laydin jebinayaa Norway oo kale gabadhii uuraysato waxay ka dhigtay inay siiso $10,000 $70,000 oo karoon oo $10,000 ku dhow ayay Norway siisay ayay ugu ballan qaaday inay siiso lacag baa jirta la yidhaha contact stote oo 7,000 oo ilmuhu markuu dhasho markuu sanadii waxaa jira mise 2 something like that war uma hayay makee waxaa looga jeedaa inay carruur dhalaan laakiin dumarkoodii baa diidan ilaa waa dumar riba cunaye dumarkoodii baa diidan khudbadii waydu ku dheeraatay ribadu diida hargeysaha laga mudaharaaday iyo burca iyo berbere iyo meel kasta muqdisho haddii xitaa lala tago kolley kuwa muqdisho way ansixinayaan waan ogahay waayo nimankaasi iyagu kuwana la yara qaatay oo kuwaasi iyagu hadday wax walba haddaan ninkan imanka farmaajo ka gaadhin oonu nin wanaagsan noqonin xamar wax dadka nool baa lagu iibiyaa xamar oo waa kuwan nimankan joogayn kuwan maxay ahayn sanka waaweyn la sheegay ka yimid Rwanda iyo Burundi iyo waa kuwa jooga xagga wadaniyada imanka waxaan dhageysanayay clip in cigaal laga duubay ilaahay u naxariistay beri oo uu soo diray inaan saaxiib loo ilaa Saciid Maxamed Amiin clipka wuxuu ku sheegayaa labadooda dhaqankoodu Maxamed Xaaji Ibrahim cigaal ku sheegayaa nimanka koonfurtu iyagu waa jin dagaagay waaweyn baa ka buuxay iyaga alkabaayir halkan jin dagaagay adigu xoogay qabyaalada iyo in yaro shilimaan maalintii cuno iska cagaga saa jooga laakiin halka jin dagaagay beerka carruurta iyo dumarka iyo isagu waxa ka ganacsadaa jooga shirkeena jaraayada maanta intaas ku dhayahay ribadii waynu diidna ma diideen clipkana gudbiya si ribada loo diido oo waxaan lagu soo amray arrintan niman culimo ah oo ka mid yahay Sheekh Saad Cabdulqaadir Kaarshe oo ku nool magaalada wadalka Switzerland inaanu ka hadalno maadaama dadku ay na dhageystaan oo ka mid nahay dadka la hadlay runta u sheega ee ilaahay wax kaga doonay runtaana wadanina waxba kaga rabno kulmiyana waxba kaga rabno ilaahay baan runta wax kaga rabnaa waxaanu idin leenahay aakhirkii iyo gabagabadii ribada diida waa ribo interest baa la yidhaha riba baa la yidhiba baasha hala diido السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدكتور كيويد الله good Saturday سبتي وناكسن إيوه أبارتود كعاوسان موية سحاب مالين هالقويشي هرقيسة إن موية سحاب لتشوتشي عبتان كودة عربل هالقويشيو والعكتا موية سحاب نولي بوسي صندوق وين هلا ديقا بريش كمقالة دا عما هلا ديقا برتي خيرية دلولين تشري oo nin waliba mooyo saxiixii uu cabayay maanta lacagtooda ku rido dabadeed si dadka abaaraha lagu caawiyo haddii kale ana mooyo saxaan cabaya walaalkayna bartan ku dhimanaya allah yakhrib baytag idinkum baa la idinka hayaa sida ayaa jintagaagay